بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو عنا وناكسن داودين مركز جوجتان halkan maanta waxa nala jooga Mustafa Martin Mohamed oo ah madaxweynaha United States of Somaliland oo dhawaan booqasho ku tagay Soomaaliya maanta ku soo laabtay Minnesota iyo jaaliyada ka tirsanaa madaxweynaha soo dhawow waad maadsantahay booqashada maanta xafiiska jaaliyada Puntland ee Minnesota muxuu daarnay aad iyo aad baad u mahadsantahay socdaalkan waxa weeyaan guud ahaan inaan soo eego xafiiska uga furan halkan Puntland dalka Mareykanka aan soo salaamo ambassadorka mulki marka waa socdaal la xiriiray socdaalkii isaguna aan ku tagay Garowe Puntland waa socdaal dee runtii taariikhiya waa socdaalkii ugu horeeyay aan ku yimi xafiiska Puntland uga furan dalka Mareykanka aad iyo aadna waan ugu faraxsanay idinkana waxaan idinka mahadnaqayaa soo dhaweynta wanaagsan iyo wanaaga iyo magaranaysa marti sharafta wanaagsan ee nagu soo dhaweyseen haddaan nahay maamulkan dawladda United States of Somaliland maadaama hadda safar baan ku baxday Soomaaliya tagtay waa soo noqotay jaaliyada ka soo noqotay maxaa ku qorshaysan hadda ajendayaasha ku qorshaysan maadaama aad soo noqotay uu yahay oo Soomaaliya maadaama aad ka soo laabatay wax maxaa halkan waxba ka qorshaysan yihiin oo ku saabsan dawladdaada howlaha aad iyo aad horta runtii wax badan baa noo qorshaysan waxaanu horta ku dhawaaqnay maamul ama dawlad la yiraahdo United States of Somaliland saddex qorshe aan haysanay qorshihii ugu horeeyay wuxuu ahaa ku dhawaaqid iyo maamul daadihin ka labaadna wuxuu ahaa inaan la xiriirno xiriirka caalamiga gaar ahaan adduunka oo dhan ka saddexaad waxa ay inaan wadankii tagno oo xafiis ka furano waa socdaalkii ugu dambeeyay aan ku tagay marka Puntland qorshihiisa ugu weyn waxa ay inaan wadanka gudihiisa Soomaaliya maadaama aan qurba joognahay inaanu ka furano xafiis marka horta taasi waa guul la taaban karo hadda waxa weeye markaynu abaabulkii sii wadno oo international community-ga gaarsiino in United States of Somaliland tahay qayb ka mid ah maamul isaguna Somaliland ka jira oo qorshayaashii ku wajahnaa ee maamulada ay heli jireen aanu iyagana qayb libaaxlid ka helo ayaa iminka qorshaha ugu weyn uu yahay sidoo kale waxaan doonayaa in wada hadalladii Soomaaliya iyo Somaliland loo qaban jiray inaan anagu laftigayga noqono qayb ka mid ah oo miiska la soo fadhiisata isku wada duuba abaabulka ugu weyn aan wadnaa waxa weeyaan midnimada amba ummadda ayaheeda Soomaaliyeed la isu keeni karo la kala siin karo wixii xaq u lahayd haday Somaliland tahay haday Puntland tahay iyo haday Soomaalida kala tahayba inuu mustaqbalkeenu yahay isku mid ayaheenu yahay isku mid marka runtii waxaan doonaynaa fikirka inaan ummadda gelino oo ummadda tusno mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed uu halaabay wada saxno dhamaanteen waana wada guuleysan karnaa marka sidaas weeye marka wacyigan wadna hadii la boqoshada maanta waxay qayb ka tahay la kulan aad rabtiin la kulan tijaaradaha kala duwan ee Soomaaliyeed dabcan waa saragteen gudoomiyihii jaaliyada mulki Hussein marka waa qayb ka mid ah la kulan aad rabtiin jaaliyadaha Soomaaliyeed kala duwan halka ay saragtaan oo aad ka gadin message-ka iyo waxa dawladda aad iyo aad waa runta weeyaan waxaanu ka bilownaa hadda fadhigan waxaanu ka bilownaa Puntland laakiin waxaanu ugu xiga gobolada kale Jubaland Soomaaliya galmudug marka maamul kasta oo magaranaysa Soomaaliyeed inaan la fadhiisno la shirno oo wixii ummadda Soomaaliyeed kala tabanayso aan tusno in la sixi karo laga heshiin karo ayaanu maaragtay imika ka shaqeynaa guul aan doonayno horseedno marka xafiiska dabcan gudoomiyihii jaaliyada waa saragteen oo dayada kugu soo dhaweysay xafiiska wax gaar ah soo hadal qaadeen oo ma jira mase soo dhaweyn uu ku saabsanaa kulankiina maanta horta gudoomiyuhu waxa weeye gudoomiyaan muddo dheer isnaqaanay muddo dheerna soo wada shaqeynay ilaa 2002 anagu mulki waa soo wada shaqeynay horta waa runtii waa gabadh firfircoon oo ummadda wuxuu qabatay halganka ummadda Soomaaliyeedna waa dumarkii ka galay gobolkan Minnesota maanta waxa muhiim ah oo u baahan in la xuso waxa weeye dadka halkan degay waxa weeye marbay ahayd arintooda bilow mulki waa dadka ka qayb qaatay haday noqoto xagga guriyegeynta xagga dhaqaalaha xagga shaqo abuurka marka horta mulki aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waana gabadh soo shaqeysay oo isnaqaanay runtii deewan la kulanay mulki si fiican way noo soo dhaweysay waxaanu ka wada hadalnay waxyaabo badan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka Puntland iyo dawladda United States of Somaliland runtii waxaanu ka wada hadalnay in United States of Somaliland heer ka weyn ka ciyaarto the international community-ga aynu ka wada shaqeynaa anaga iyo Puntland gaar ahaan in madaxda adduunka lala kulmo anaguna fadhi kasto la isugu yimaado anaga iyo Puntland oo wada jiri aanu ka wada shaqeyno ummadda Soomaaliyeed aanu tusnayna ayaheeda mar labaad la soo celin karo guud ahaan waxay arintan daba socotaa arrintii madaxweynaha iyo qodobadii aanu ka wada hadalnay madaxweynaha Puntland marka runtii waa guul weeye waana xiriir wanaagsan oo sii wada doono weeyaan madaxweyne aad iyo aad baad u mahadsan tahay mar labaad welcome back jaaliyadaadii dadka madaxda u ahayd waan ku soo dhaweynaynaa runtii wayna ku mahadsan tahay jaaliyada iyo especially mulki Hussein ku soo dhaweyso marka insha Allah waa aad iyo aad baad madaxweyne mahadsan thank you aad mahadsan marwo mulki maanta waxa xafiiska ku qaabishay madaxweynaha United States of Somaliland muxuu ku saabsanaa qaabilada maanta iyo kulankiinu Gabax waad mahadsan tahay inaad maanta i wareysatay oo nagu wareysatay aniga iyo Martin oo ah
United States of Somaliland madaxweynihiisii oo halkaan nagu soo booqday maanta si sharaf leh baan anaguna u soo dhaweynay asagana uu nooga aqbalay inuu ma aragtay maanta uu noo yimaado asagoo wax badan soo maray wadankii tagay siiba Puntland tagay la soo kulmay madaxweyne Abdiweli iyo boqorkiiba wax badan buu sharaf badan buu noo sheegay si fiican loo soo dhaweeyay anaguna sidoo kale baan maanta u soo dhaweynay in uu xafiiskii noogu yimaado jaaliyada Puntland leedahay oo ku suganahay wadankii Mareykanka maanta wada hadalkeeni wuxuu ahaa inaanu noqono dad ku midooba inaanu Soomaalinimada iyo Soomaaliya isku wada timaado waxaan kala tabanaynana aanu ma aragtay aanu kala helno iyaduna ay ahaato mid bilow noo ah horumarka Puntland iyo Soomaali oo idilba inaan ka wada shaqeyno midda kale uu guusha uu soo gaaray uu sheegay Martin waxay ahayd in xafiis ay leedahay in United States of Somaliland ay ka furunteen magaalada Garowe wuxuuna ku dhawaaqay inay noqon doonto Garowe gurigii ma aragtay nabadda gurigii Soomaali isugu imaan lahayd gurigii ma aragtay looga wada hadli lahaa isku taga Soomaaliya iyo waxyaalaha ay kala tabanayso marka anaguna taa aad bay noo farxad gelisay inay noqon anagoo awalba aaminsaneen in ma aragtay Puntland tahay meel ka shaqeysa shacabkeedii dawladeediba inay nabad ay ka shaqeyso kuna caan ah in uu asagana maanta uu nala qaatay hadalkaas oo ah inuu xafiiskii uu ka furay halkaasna uu ku faraxsan yahay inay noqoto xafiiskii ugu horeeyay uu dalka gudihiisa ay ka furtaan haday yihiin United States of Somaliland marka hadda jaaliyada Puntland as gudoomiye ahaan marwo mulki maxay idin qorshaysan maadaama halkan hadda isaga laftiisa uu joogo hadda mustaqbalka inaad United States of Somaliland iyo jaaliyada Puntland waqooyiga America ay wada qabsadaan ama ka wada shaqeeyaan qorshe noocaas ma jiraan waan ka wada hadalnaa iyaduna in ay dhici doonaan shirar aanu soo qabanqaabino anaga oo isku duuban taasoo dadka Soomaaliyeed aan ugu baaqi doono in ay maaragtay ay ka wada hadalno danaheena naga dhaxeeya iyo horumar iyo sida aan u maaragtay uga wada hadalno wixii naga kala maqan sida anaga oo si nabad ah aan u kala qaadano marka sidaas aan maaragtay aan ku soo gabagabeynay inaanu nahay dad Soomaaliyeed oo meel walba ka dega Soomaaliya haddana aanu nahay hal dan inaan wada leenahay danteenuna ay tahay inaan nabad ku wada noolaano aan isma aragtay si ay anagoo dhan aanu horumar u gaarno waxaan kaloon kugu dari lahaa oo aan ka wada hadalnay waxay ahayd in uu Martin aniga isku soo qaadnay in jaaliyada Puntland oo kaliya aysan ahayn waxyaalaha dadka aan isagu uu la hadli doono in isku wada imaan doono inay tahay jaaliyadaha dhan oo maaragtay ku sugan halkan oo ay iyagoo dhan aan ugu baaqi doonaa in aanu nabadda ka wada shaqeyno iyo waxyaalaha naga wada dhaxeeyo Soomaalinimada iyo wanaagga iyo horumarka Soomaalida oo dhan marwo mulki aad iyo aad baad mahadsantahay waraysigaaga waa kaaga mahadcelinaa waa tahay daawadayaal kulankan ayaa wuxuu kusoo gabagabay isafgarad iyo wada shaqeyn dhex mari doonta mustaqbalka labada jaaliyadood Abdiaziz Gabax Puntland TV Mareykanka